waxaa maanta xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera ka qabsoomay banaanbax aad u weyn oo lagu taageerayo qadiyadda madax bannaanida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana isu soo baxan ka qayb qaatay mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee heer degmo iyo heer gobol shaqaale weynaha dawladda iyo hay'adaha gaarka ah arday iyo sidoo kale shacabka ku dhaqan magaalada berbera kuwaasi oo ruuxayay astaamaha iyo calanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuna dhawaaqayay ereyay ka mid yihiin in Soomaaliland caalamku aqoonsado waxa sidoo kale xusid mudan in shacabka magaalada berbera ee banaanbaxan ka qayb qaadanayay uu sitay calanka dawladda UK iyo sawirka xildhibaan Gavin Williams oo ah MP ka tirsan aqalka hoose dawladda UK kaasi oo sabab u ahaa doodii aqalkaasi ka dhacday ee lagu gorfeynayay in dawladda UK aqoonsato Soomaaliland munaasabaddan oo ka qabsoontay khayriyada magaalada berbera ayaa waxa ka hadlay qaar ka mid ah shacabka kala duwan oo isugu jiray haween dhalinyaro abwaano cuqaal odayaal iyo waxgarad kuwaasi oo dhammaantood siyaabo kala duwan ku cabirayay in gooniisu taaga jamhuuriyadda Soomaaliland yahay mid muqadas ah habka nolosha Soomaaliland waa heer sare himilada qurxoon iyo la yaab horumarkeediye habka himilada qurxoon iyo la yaab horumarkeediye hodan baan ka nahay dawladnimo waana la hubaaye hadii baan ka nahay dawladnimo waana la hubaaye hiliya naga nala jiroon hoos banoo dhigine hiliya naga nala jiroon hoos banoo dhigine waxaa halkan isugu soo baxdeen inaad muujisaan inaad tihiin dal xor ah oo dimuqraadi ah oo caalamka doonaya inuu ka mid noqdo tan iyo qadiyadeenna waynu soddon jirsanay madaxweyne daacad ah oo dadkii horumariyey oo dalkii horumariyey oo wax walba oo dalku u baahayay qabtaa ilaahayna siiyey qaar dambena way iman doonaan oo duco qabaa mid waxaan u mahadnaqaynaa MPga xildhibaanka Gavin Williams ee qadiyadda geeyay guriga baarlamaanka looga arrimiyay shirkadinta ee muujiyay waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay halkaa ka sii wad kaysataan annagu aanu garownay raggaygii waddanka soo horeeyey idinka ayaa waddankan aanu idiin horeynaynay inay ilaashataan annagu qayrkay aanu iska soo celinay inaydun idinkuna qayrkiin iska celisaan haddii ay qalin tahay iyo hadday xabad tahay iyo hadday waddaninimo tahay iyo hadday ay tahay maxaanku idhahdaa muwaadannimo hadday tahay inaydun iska celisaan qayrkiin inay idinku iska celisaan idinkuna annagu qayrkay oo annagii iska soo celinay oo annagii idiin horeynay dhulka qadiyadeenna caalamka laga muujiyey golayaasha ingiriiska hor yaalla dhammaantiin waa daawanayseen sidaad la socotaan dhammaanteen oo dhalinyarada inta badan u badan tihiin innagu Somaliland ingiriisku wuxuuna xukumayey in ka badan 76 sannadood oo aynu ka ahayn maxay tahay waddan Soomaaliya ka madax bannaan ku jirin 60kii baynu isku biirnay Soomaaliya 20 sannadood keliya oo dhibaatadii aynu soo gaarsiisay iyo halkan isla soo barnaa garanaysaan ayaynu Soomaaliland ku soo jirnay intii waxaynu kaga baxnay waxa weeyaan ma aha waxaynu kaga baxnay ma ahayn in macnii barye iyo waxyaalo kale toona baynu ahayd qori caadadii ayaa waddankan lagu xoreeyey dad baa u dhintay mujaahidiin baa u halgamay waxa weeyaan dhiiggooda kuwii u dhintay inagu maanta halkan u joognaa in ku baraarsan nahay oo maanta ku ganacsananahay oo xorriyadda intaa leegaan u helnay allahu akbar allahu akbar allahu akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha israacdo Soomaaliland ha midowdo markaanu qadiyadda leenahay eenu doonayna qaranka Soomaaliland jiridiisa iyo mowqifkiisa mucaarad iyo muxaafid ma kala lihin raggayagu koob shaaxay meel ku wada cabbaan raggayagu qarankay u wada dhinteen waxa weeye hooyo inankeedii weyday iyo mid ninkeedii weyday iyo mid waxa ku dhuwisiisaysa ayuu farmaajo soo kiciyaa oo maalintii ciidayada cadawgu wantiyey oo maalintii ciidayada cadawgu wantiyey cadaaniya madowga maan ticilada la dhigay caruuraa iyo markii caamiyaa la qubay ee cudka laga yaacaye caydha la isku guray caleentiya doogu niman kay xunta
dejiye ciidda nabad ka dhigay caalanka noo taagayba cirifyadeenna tuban sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi hadalka isu daba maray mas'uuliyiinta laamaha dawladda ee heer degmo iyo heer gobol kuwaasi oo ku dheeraaday sida gooniisutaagga jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay mid muqaddas ah inay muujiyaan qadiyadooda iyo dawladnimadooda iyo waxa ay ka doonayaan bulshada caalamka muujiyaan aad iyo aad baan u hambalyeeynaya waxaan leeyahay 30 sanadood baynu raadinaynay waxa ilaa aynu helno midnimada iyo dawladnimada iyo ictiraafka aynu raadinayno halgankaas aynu ugu jiraynaa maanta waxaynu taageeraynaa bannaanbaxa aynu ku taageerayno ictiraaf raadinta Soomaaliland bismillah waxaan markaa bulshooyinka iyo ka soo qaybgalayaasha iyo caalamkaba ugu baaqayaa Soomaaliland maanta waxay taagan tahay meel aan ka soo noqonaynin halka inay sare uga sii socoto ma soo noqon mayso waxaan aad u hambalyeeynaya oo salaanta islaam ku salaamaya dhammaan shacabweynaha gobolka saaxil gaar ahaan degmada Berbera sida sharafta leh ay muujiyeen qadiyadda Soomaaliland heerka ka taagan yihiin waan idinka mahad celinayaa runtii mar labaadka waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland inaanay warwarin calanka waxa ku yaala tawxiidka Ilaahay cidda jin kartaa ma jirto calanka tawxiidka cidda jin kartaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo martay qadiyadeedu taariikh aad u fara badan qisada ay soo martayna runtii haddii buuga laga qoro qotadeedu aad bay u dheertay halganku wuxuu u qaybsamaa dhowr qaybood halgankii qorigu wuu dhammaaday waana la kala sad qaaday balse Soomaaliland waxaan xasuusanayaa dagaalkii iyo halgankii qalinka iyo sharciyada ayaa haray runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa shacabweynaha reer Berbera sida sharafta leh ay u muujiyeen dareenkooda maanta runtii dadkeenu waa dad wanaagsan oo goba oo mar walba dareenka iyo xaaladda jirta la ku baraarugsan Soomaaliland ha guulaysato idinkana Ilaahay barakeeyo waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo bulshada reer Berbera dhammaan saqiir oo kabiir maanta u soo banbaxay muujiyey qadiyadooda iyo dareenkooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa dareen wadannimo waa dareen muwaadin waxaynu ognahay qadiyaddan inaynu u soo marray burbur iyo dhimasho iyo qax iyo inamo badan oo naftooda ku waayey iyo kuwo maati iyo waayeel iyo waxgarad intaba lahaa oo gacanta loola tegey iyadoo ay xukuumaddii iyo dawladdii aynu ku midownay ama aynu isugu tagnay midowgii jamhuuriyaddii Soomaaliya ay gacanteeda ula tagtay Kamto Ismaan Ali warka Horyal TV Berbera